Baraha bulshada. Magaca baraha bulshada waa magaca ina ilowsiye cidda dhabtay aan nahay. Aan ku sheegay cidda aan nahay waxaan nahay muslimiin. Waxaad tahay wiil muslima. Waxaad tahay gabar muslimada. Baraha bulshada waa halka maanta dhalinteedu noloshooda ay ku baabiyaan. Waa halka maanta qof walba uu ka raadiyo caannimo. Oo qofkii raba inuu caan noqdo waa inuu baraha bulshada ka soo muuqda isagoo sameynayo wax ka baxsan diintiisa iyo dhaqankiisa. Haddii aan maanta ku weydiiyo maxaa caqligaaga ku jira, waxaa laga yaabaa inaad ila yaabto iguna jawaabto maxaa kaa galay waxa caqligayga ku jira. Laakiin waxaad ogoshahay maalin walba inuu Facebook caqligaaga ku ciyaaro. Ha iga diidin markaad soo gasho Facebook qaybta sare waxaa ku qoran What is your mind oo micnaheedu yahay maxaa caqligaaga ku jira. Wax walba oo caqligaaga ku jira halkan soo dhig. Dadka qaar waxay soo bostigareeyaan maalin walba waxa u gaarka naftooda, sida waxaan aaday suuqa, waxaan soo gatay dhar, waxaan aadayaa guriga hooyaday, iyo waxyaabo qaar oo aan afka soo qaban karin. Miyaadan ogeyn walaal in waqtigaaga lagu weydiin doono maalinta qiyaamaha halka aad ku bixisay, si lamida lagu weydiin doono dhalinyarinimadaada xaggii aad ku bixisay, cimrigaaga xaggeed ku bixisay. maxaad ugu jawaabi doontaa maalinta qiyaamo ma waxaad ugu jawaabi doontaa rabbi waxaan ku soo qaatay waqtigayga Facebook. waxa ka mid ah dhibaatooyinkiisa inuu waqti badan lumiyo hadna waqt waxa la qofku inuu maalintii dhan kaga lunto sidoo kolba mowqac iyo qof wuxuu qoray oo si raacay oo si eegayo inuu waqtiga kaga lumo taasina ay sababto inuu dayaco mas'uuliyadkiisa oo dhan waxbarashadiisa inuu dayaco shaqadiisa inuu dayaco waqtigiisa oo dhan inuu dayaco. waxaad arkaysaa qof dhalinyaro oo aad u faraxsan markii aad weydiiso maxaad sidan kaaga farxiyay waxa uu kugu jawaabayaa waxaan helay maanta 30,000 oo like. waxaa laga yaabaa inuusan ugu farxin familkiisa markii uu waqti la qaato sidaas si lamida uusan ugu farxin markii uu sameeyo camal wanaagsan. dhibaatada baraha bulshada kaliya kuma koobna Facebook, waxaa jira mid lagu magacaabo TikTok. marka dharkayga dhigtid ama iga heesa dhacdaa. magaca TikTok waa magaca qiimo tiray gabdhaheenii muslimaadka ahaa kana qaaday xishoodka. waa mid laba far dheer Facebook. waa midka gabadha ay soo dhigtay iyadoo qaawan si muuqaal ah. waa meesha kaliya aad kula kulmi karto TikTok wiil iyo gabar walaalo oo si wadajir ah u qaadaya heeso. waa meesha kaliya aad kula kulmi karto nin iyo xaaskiisa oo wada heesaya oo xaaskiisa oo qaawan u soo bandhigaya kumanaan rag ah. walaalkaygiiyo miyaadan arkin kuwa fanaaniinta markay duqoobaan ay dareemaan inay ku socdeen waddo qaldan ay dhahaan fanka waan ka baxay heesahaygan ayaan la daawan. muuqaalka aad TikTok ku duubayso ma ogtaa inta qof ee daawanaysa miyaad awood u leedahay inaad xakamayso muuqaalkaas. haddii aad is leedahay waxaan ahay dhalinyaro kuwii kaa caafimaad badnaa kaa da'yara ayaa maalin walba wadnaha istaagaa yaa kuu ballanqaaday inaad beri sii noolaan doontid. haddii aadan awood u lahayn inaad u adeegsato baraha bulshada dhanka wanaagsan oo ah inaad kula wadaagto khayrka dadka, fadlan ha shaqaysan dembi markaad dhimato kuu sii socon doonaa. muuqaalka maanta aad isaga duubayso TikTok haddii aad maanta dhimanto waxa uu yaalayaa dunida waana la sii daawan doonaa. intii ay daawashadiisu socoto waxaa xaqiiqa waxaa kuu socon doona dembi marka gacantaada ha ku shaqaysan waxa aadan xakamayn karin. waxaa laga yaabaa kuwa qaar inay ku dhahaan waxaan samaynayo ma lahan fursad baan haystaa sidaas darteed ayaan baraha bulshada u isticmaalayaa si qaldan. ogow Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi fa idaa faraqta fansab oo ah micnaheed haddii aad fursad hesho allaha u toosano oo dikriga ilaahay badi. laguma dhihin fa idaa faraqta falcab oo ah haddii aad fursad hesho ciyaar boodbood oo TikTok muuqaal isaga duub. baraha bulshada waa meel loo adeegsan karo wanaag iyo xumaan, khayr iyo dembi. waa meel qof walba uu ka qaadan karo waxa uu isaga doortay. ma jiro qof lagu qasbayo inuu meel gaar ah ka qaato. qof waliba wuxuu doono ayuu soo geliya marka waxay noqon kartaa il biyo xareedan noqon kartaa bulaacad reeraysan noqon kartaa. laakiin dadkeena 80% waxay u adeegsadaan si qaldan oo aakhiriyo adduunba aan faa'iido u lahayn. haddii aad ka mid tahay kuwa u adeegsada baraha bulshada dhanka wanaagsan allaha ajar ha kaa siiyo. haddiise aad ka mid tahay kuwa adduun iyo aakhiraba ku beelay halkaas walaal fursad ayaad haysataa noloshaada ha ku burburin baraha bulshada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.